hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa ku guuldareystay in sidii isaga uu rabay uu ka helo General Jimcaale Jaamac Takar kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay la sheegay inuu socday wada hadal dhankooda ah oo odayaal dhaqameed ay ku jiraan. General Jimcaale Jaamac Takar ayaa la sheegay inuu diiday inuu ka tanaasulo xilkii ay dhawaan u magacaabeen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana la sheegay ugu dambeyn la tilmaamay in lagu heshiiyey in General Jimcaale uu tago magaalada Garowe ee caasimadda Puntland halkaas oo isaga uu ka soo jeedo. Dani ayaa hore u sheegay in Jimcaale oo ah sargaal sare oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed uusan imaan karin Garowe. Generaalkana waxa uu tilmaamay in Garowe isaga uu tagayo oo ciidankiisa ay joogaan cidna aysan hor istaagi karin. wixii markaasi ka dambeeyay waxa la sheegay in waawaan ay wadeen odayaal dhaqameed iyo waliba siyaasiyiin reer Puntland ah uu socday muddooyinkii u dambeeyay kuwaas oo kala gaargaar ahaa, sidoo kalena Dani iyo Jimcaale labaduba lagula hadlayay. warka aanu helina ayaa sheegaya in Siciid Dani iyo waliba General Jimcaale labaduba ay wateen laba sharuudood oo kala duwan, hase yeeshee mid walba iyada oo la sheegay in xalka madambeys ah aan laga gaarin. ugu dambeyntii General Jimcaale maalmaha soo socda uu tagayo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Jimcaale Jaamac Takar ayaa muddooyinkii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Laascaanood halkaas oo odayaal dhaqameed kulamo uu kula jiray, waxaana la sheegay inuusan ka tanaasulin oo weli uu ku taagan yahay mowqifkiisa ah inuu yahay taliyaha qaybta 54aad ee ciidanka xoogga dalka. Siciid Dani ayaa hore u sheegay in General Jimcaale uu ogol yahay ciidankiisa in mushaarkooda uu bixiyo, sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidanka uu Garowe keenay uu qaado asaga, laakiin waxa uu tilmaamay in Jimcaale uu kaga baahan yahay inuu ka tanaasulo xilka ay dawladda u magacaawday, taas oo ahayd hanqaltaagii ugu weynaa ee Dani uu doonayay iyada oo aysan suuro gelin markii dambe. wixii warar ah ay soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan hadduu ay beedmo. isbitaalka Amora Specialist waxa uu dalka keenay qalab casri ah oo adigoo aan qalin lagu marsiin ama dawo lagu siin ayaa laga daaweynayaa hameeyirida ragga. waxaan xaadir kugu ah isbitaalka dhaqaatiir PhD sidata oo 20 sano wax ka badan ka shaqeynayay cilmiga cudurrada ragga.